waxaa ka dhalanaysa khilaafaad shacabka in la iska hor keeno waxaa ka dhalanaysa masaajidda in la iska hor keeno waxaa ka dhalanaysa balbala iyo fasaad wuxuu ka aaminayaa wadaadadii inay yihiin koorgeel sida caamadu ay dhihi jireen marka waxaa ka imanaya suu dhanni bil islaam hadduu ilaa jaamacadeeda waxaan ku soo arko oo madhaban Soomaaliya aan keeni tanida maxaa imanaya kan xagga inuu ka keeno xanafiya kan xanaabila xagga inuu ka keeno kan maalikiya xagga inuu ka keeno hadda ka hor masjidan soo galay hindi masaajid hindi ku yaala aan soo galay waxaan u maleynayaa salaadu inay maghrib ahayd imaamkii marka faatixadii aqriyay faatixadii markuu imaamkii aqriyay wala dhallin markuu yiri aamin ayaan anigu la jahray aniga hadda madhabkii shaaficiga aan la qabsaday waxaan arkay masaajidkii oo kaligay aamin aan kale kaligay kabacdi marka waa iskala qabsadayo hoosan isaga akhristay aaminteedii ilaa masjidka markaas waxaan ogaaday xanafi inuu yahay masjidku xanafi uu ah marka wala dhallin markii la yiri aamin kabacdi waxaan arkay kaligay yaa codkaas bayro kaligay ayaa codkii masaajidka ka muuqday aamin kabacdi markaan salaada ka baxnay ilaa hunuud waxay u badan yihiin xanafiya u badan yihiin nimankan hunuudda xanafiya u badan yihiin marka waa dad madhabkoodii ilaashanaya fawda diineed waayo yacni qofku madaahib badan in waddanka la soo geliyo waxaa ka dhalanaysa fawda diineed waxaa ka dhalanaysa khilaafaad shacabka in la iska hor keeno waxaa ka dhalanaysa masaajidda in la iska hor keeno waxaa ka dhalanaysa balbala iyo fasaad masaa'ilka fiqhiga ah ayaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa oo kale shacabkii inay diintii ka aaminaan suu dhanni ilaa waddanka haddii hal madhab uu saydareeyo oo hal madhab waddanka lagu xukumo diinta ictiqaadkii dadku ay ka qabeen wuxuu noqonaa ictiqaad nadiif ah oo saliim ah laakiin masaajidkan hadduu basmaladii la jahro kanuu uu siraysto kanuu uu qunuudo kanuu yidhaaho waa bidco kanuu yidhaaho salaadii haddii islaanta lagu furo 3 dalqa haddii lagu furo hal dalqan ka xisaabayna kanina uu yidhaaho qowlu jumhuur waxa weeye dee rajca ma lahan ilaa nin kale inay soo marto mooye dadkii caamada ahaa oo khilaafaadkan hoose iyo adilada aan ka warqabin maxay ka aaminayaan diinta islaamka adiga qof baaxitha tahay sheekha tahay kutubta waad ka warqabtaa iyo madaahibta mawaaqifta ay ka taagan yihiin masaa'ilka waad ka warqabtaa adiga laakiin qofkii suuradaas waddanka kor ka sawira caamina ah muuqaalka noocaasna waddankii Soomaaliya u sawira muxuu ka aaminayaa diinta islaamka wuxuu ka aaminayaa diin tanaaqud wadata inay tahay wuxuu ka aaminayaa diin arkaan iyo qawaacid iyo usus ay ku istaagto aan lahayn diintu inay tahay wuxuu ka aaminayaa wadaadadii inay yihiin koorgeel sida caamadu ay dhihi jireen marka waxaa ka imanaya suu dhanni bil islaam sidaas awgeed waxaan dardaarmaynaa dadka balbalada in laga daayo oo madaahibta faraha badan oo waddanka la soo gelinayo oo nin walba markuu kitaab ku arko waqiila iyo madhab fulana sidaas qaba inuu yiraaho mujtamaciyaan ku hogaaminaya masaajidiyaan ku hogaaminaya uu yiraaho in laga daayo waddankan waxa weeye intuu islaamka qaatay oo qadiim ah ilaa ahdigii madiinatul munawwara intaysan islaamku soo gaarin ayaa Soomaaliya islaamku uu soo gaaray dad muslimiin ay ahaayeen dadkan caalamkana sidaas u diiwaan gashan waa mas'ala qadiya caalamiyo qadiya daa'ifiyya ma ah qadiya kooxeed ma ahan waa qadiya caalami ah caalamkana waxa u diiwaan gashan Soomaaliya islaamku inuu qadiim ku yahay boqolkiiba boqolna ay muslim yihiin wadaadkii aragti gooniya taas ka qaba waa aragti ku qotanta daa'ifiyya iyo cunsuriye ku qotanta cunsuri maadaama waddanka marka sidaa uu yahay intaas uu Soomaaliya ay diinta haysatay madhabka shaaficiga lagu daraasaynay asaga qadaayaadka lagu kala xukumay fataawaadka asaga lagu dhisayay fawdaduna saasay ku yaraan kartaa laakiin nin walba haddii uu jaamacaddii ka soo baxay
jaamacadii uu ka soo baxay 4 sano dhiganayay iyo 2 sano dhiganayay haddii ila jaamacadeeda waxaan ku soo arko oo madhaban Soomaaliya aan keeni tanina maxaa imanaya kan xagga inuu ka keeno Xanafiya kan Xanaabila xagga inuu ka keeno kan Maalikiya xagga inuu ka keeno suuradii marka wadanka shacab mutadayyin aha abra alqurun almaadiya shacab mutadayyin aha waxa imanaya muuqaalka kore in lagu jahwareero adii haddaad baaxis tahay haddaad adilada si loo kala tarjiixinayo aad soo akhrisay dadku ma daraasayn waxaad u daraasaysay marka si muuqaalka wadanka loo qurxiyo diineed balbalada iyo fasaadka iyo khilaafaadkana uu u yaraado in madhabka shaaficiga waa in la qaato imaamu shaafici raximahullahu tacaala waa naasiru sunna fii cahdihi a'immada xadiiska saasay ku magacaabeen ninkii sunnada iyo axaadiista nabiga u hiiliyuu ahaa sala allahu calayh wasalam madhabkiisuna qawaaciduu leeyahay oo kitaabkiisa alrisaala ayuu sheekhu ku qeexay madhabku waxa uu ictimaadayo waana madhabka kale ah oo imaamkii madhabkan qoray xararahu biyadihi gacantiisa uu ku taxriiriyey qawaacidkiisa iyo furuucdiisa labadaba sheekhu qawaacidka madhabka uu yani daliishanayo iyo maraajicdiisa kitaabka alrisaala uu ka qoray furuucda dhinaceedana wuxuu ka qoray kitaabka la yidhaha al-um fahuwa madhabun munaqaxun wa muxararun biyadi saaxibih waa madhab marka munaqax muxarar ah qofkii madhabkan iska lahaa gacantiisa lagu taxriiriyey usuulan wa furuucan waa madhab saas u qeexan waa madhab yani marjiciisa uu yahay kitaabka iyo sunnaha nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ijmaaca iyo qiyaaska sida macruufka ah loo ogsoon yahay intaas ayaa masdar u ah madhabka imaamu shaafici marka aan leenahay madhab imaamu shaafici ha la qaato oo ummadda balbalaha laga daayo macnaheedu ma aha ra'yi rijaal ha la qaato dadaa warka si xun u qalloocinahay madhabka ha la qaato macnaheedu waa kitaabkii sunnada ha la qaato lannu imaamu shaafici raximah allahu tacala intuu meel fadhiistay miyuu ra'yigiisa noo soo qorqoray hadda ka hore waxaa la yidhi imaamu shaafici raximah allahu tacaala isagoo meel maraya sida imaamu albayhaqi kitaabkiisa manaaqibka uu ku qoray nin ay ka hor yimid markaas wuxuu yidhi sheekhow xadiis saxiixa ma qaadanayo uu yidhi oo madhabkaaga khilaafsan ma qaadanayo yidhi kaniisad inaan ka soo baxay miyaad ii malayso yidhi cibaaro kale waxay ahayd zunnaar inuu dhexda iiga xiran yahay miyaad u malaysa sunnaarka waxaa weeye waa calaamad lagu oqoon jiray dadka ahludimada ah oo gaalada ay xiran jireen ma zunnaaraa dhexda iiga xiran uu yidhi yani ma gaalaan ahay marka aad leedahay su-aasha waa khaldanta aad leedahay xadiis nabi ma qaadanay maxay tahay maxaa kaloo masder annaga noo ah maxaa kale oo masder noo ah marka la leeyahay madhabka imaamu shaafici raximah allahu tacaala ha loo daayo ummaddan ha loo daayo marka la leeyahay macnuhu ma aha ra'yu rijaal dadka ha loo daayo ma ahani waa fahamkii imaamuna shaafici uu ka fahmay kitaabka iyo sunnaha nabiga sala allahu calayh wasalam macnuhu waa sidaas ma ahayo shakhsi in lagugu xirayo ma ahan shakhsi ra'yigiis in diin lagaaga dhigayo ma aha waa kitaabkii ilaahay iyo sunnihii nabiga sala allahu calayh wasalam laakiin bifahmi waaxid min asalaf asaalix salafu saalix qof ka midoo cumdo ah ee cibaadadiisa iyo zuhdigiisa iyo cilmigiisaba ummaddu ay wada qireen oo lagu wada ijmaaco kelimatlijmaac ay tahay fahamkiisa ha la qaato ujeeddada wax la leeyahay marka sidaa waxay ugu soo dhacday nimanka anugu hadda kuma eedayn markii masjidkoodii kaligay aamiin aan ka iri kuma aanan eedayn maxaa yeele madhabkoodii waa madhabkoodii marka qofka dadka in usuushooda iyo madaahibta iyo turaadka iyo dhaxalkooda loo ilaaliyo caalamka oo dhanaa sidaa ka jira markaad fiiriso dowladdan sacuudiga markii aad tagtid hal masjid ma arkaysid dad wareegto oo laga qunuudayo ama basmalo loola jahrayo ma ogola dowladdu waxay qaateen madhab ulxanaabila madhab aan ahayn lama iftoon karo meelaha caamkaana lagama sheegi karayo masaajidda waaweyn mana looga dhaqmi karo marka waa wax caalamka oo dhan sidaasna cabra alquruun way ahaan jirta dowlad walba iyo ummad meel wada degan inay yeelato usus iyo madhab ay ka duusho oo ummadu ay isku raacdo laakiin waxaan inagu aanu ku jirno oo fawdada ah ummad qabtahay ma jirto
ummad qabtaa ma jirto fawda iska socota qofba wuxuu rabo uun iska raacay waxaad arkay qof caamiya oo diintii iyo madaahibtii iyo adiladii iyo nusuustii iyo waxba sidaas aan ka ogeyn oo ku dhahaya war bisinkan in lala jahro bidca weey wax daliil kuma soo aroorin daliil muxuu yahay hadda tiraahdo kuma sheegi karo daliilka naftiisa qeex muxuu yahay daliil yaqaan qof walba wuxuu rabo diin ka dhigtay marka qof walba wuxuu doonay diin ka dhigtay marka waxa weeye ummadda in turaadkooda iyo dhaxalkooda loo ilaaliyo waxaa ku jira sharaftooda iyo suu danni inaan diinta laga qaadin dadka caamada suurad xun aysan ka qaadin